anigu aragga ayaan lahay, asagu aad ayuu ii xiiseynayay. Noloshiisa oo dhan waxa uu ka doortay tayda. Waxa ay tahay sheeko xanuun badan. Waxa uu wiilkan isku dayay in araggeeda uu soo celiyo. Dadaal walba ayuu sameeyey, waana uu ku guulaystay. Kadib maxaa dhacay? Sheekadaas ayaa idiin soo gudbi doonaa, waxaadna ka daawanaysiin barta YouTube-ka ee Socdaal 24. Gabar naga qarisa magaceeda ayaa sheekadana la wadaagtay. Waxa ayna sheekadu ku bilaabanaysaa sida tani: anigu nolosha aad ayaan u nacay. Geeri ayaan ka doorbiday markii aan waayay nolosheeda qof ila qaybsado, xitaa aan waayay qof ila sheekaysto. Qoyskayga waxay ahaayeen kuwo mashquul badan, noloshooda ayay soo dhacsi jireen. Aniguna aragga ayaan lahay. Aad ayayna igu adag tahay marka aad naafo tahay in qof aad la sheekaysatid ama qof ku xiiseynaya aad heshid, maadaama noloshaada qayb ka mid ah ee kaa maqan tahay. Markii gacani kaa go'an tahay ama indhaha ay kaa maqan yihiinna waa ay kala xanuun badan tahay. Aniga oo noloshaas ku jira ayay dhahday gabadhii, waxaa ii suurto gashay inaan barto wiil. Wiilkaas oo aan qarinaya magaciisa ayay dhahday. Markii aan barta ayaa waxaa ii suurto gasha ayay dhahday gabadhii, wiilkaas in inta badan noloshiisa oo aniga ila qaato. Subax walbo, habeen walbo, dharaar walbana aniga ayuu ila joogi jiray, maadaama waqtiga ugu badan uu sii jiray. Mar walba sheekadiisa waxay ahayd sheeko igu soconayso. Anigu mar walba waxaan ku duceysan jiray in Ilaahay subxaanahu wa tacaala araggayga uu ii soo celiyo, si aan u arko qofkan mar walba ila sheekaysanayo, aanu u dareemo waxa uu yahay. Wiilkii waxa uu isku dayay si gabadhan araggeeda ugu soo celiyo wax walba inuu sameeyo. Laakiin gabadhu waxa ay ka soo jeeday qoys noloshooda ee iska hoos tahay. Way ku adkay saddexda waqti gurigooda in cunno laga kariyo. Laakiin wiilka ayaa wuxuu ahaa wiil aad u dadaal badan, wuxuuna mar walba noloshooda ciddaas u raadi jiray waxyaabihii ay cuni lahaayeen, isaga oo mar walba wixii uu soo helo guriga keeni jiray. Asxaanka iyo guusha mararka qaar waxa ay kuu horseedaa hamigaada nololeed oo aad gaartid. Mararka qaar guusha waxa ay keentaa in waxyaabaha aad samaysid xanuun ay kugu noqdaan. Abaalka mararka qaar waxa uu keenaa qof aad abaal u samaysane mararka qaar inuu jisaar kula noqdo. Maxaa dhici doono? Wiilkii gabadhii waxa uu isku dayay in uu xanuunkeedii uu wax ka qabto, aragga sidii ugu soo celi lahaayna uu isku dayo. Dhakhtar ayuu raadiyey. Kadib dhakhtarkii markii uu geeyana wiilkii waxa uu sheegay gabadhaas xaaladda ay ku nooshahay. Markii dhakhtarkii uu geeyey, wiilkii waxa uu ka doorbiday indhihiisii. Asaga ayaana doortay xaaladda naafanimada si gabadhaas u hesho araggeedii. Gabadhii ayuu ku wargeliyay habeenkii in berri loo sameynayo qalliin, kaasi oo araggeeda lagu soo celinayo. Waa ay ku guulaysatay gabadhii. Qalliinkii markii loo sameeyey, guriga ayaa lagu soo celiyey. Maalmo kadib markii guriga ay joogtay gabadhii, ayaa loo sheegay inay joogto waqtigii ay iska furi lahayd. Gabadhii waxa ay codsatay in gacaliyaheeda uu ka furo. Guriga ayuu imaaday. Dhawaqiisa markay maqashane aad ayay u faraxday gabadhii. Wiilkii markii qolka uu soo galay, waxa uu ka furay sharootadii indhaha ka saarneed. Markii uu gabadhii ka furay, gabadhii aad ayay u faraxday. Farxad daraaddeed ayayna la soo xirabtay. Gabadhii waxa ay durbab ah. Haddana murugadii ay dareentay ayaa ahayd in wiilkii intaas oo asxaan u soo sameeyey aragga uu naafo ka ahaa. Qac ayay dhahday. Nolosheeda hore ayay soo xasuusatay. Markaas ayuu wiilkii dhahay, gacaliso goormee arooskeena ka dhiganeynaa? Gabadhii waa ay ooysay, marna waa ay murugootay. Waxa ay dhahday, maya, oo ma laga yaabo inaan aroos kula galo? Qof kale ayaad raadsanaysaa. Anigu uma baahni qof naafo ah. Xaaladdaasna aniga ayaa soo gala ayay dhahday.
Wiilkii aad ayuu u murugooday, waxa uuna dhahay qalin iyo warqad ha la ii keeno. Kadibna waxyaabo fara badan ayuu ku qoray, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen: anigu waxaan intaan oo idil u marayay, adigu sidaan kuu heli lahay haddii adigu aad abaalkayga sidaan ka dhigtay. Ruux kale oo bila'aadan ah sidaan ha u gelin. Dhakhtarkii ayaa imaaday, kadibna gabadhii waxa uu ku wargeliyey sida ay wax u dhaceen, iyo wiilkan araggiisa waxa uu ku doortay inay keedi tahay. Dhakhtarkii gabadhii dhegna jalaq uma siin, oo waxay dhahday, aniga go'aankayga ayaa cad, uma baahni nin aan indho lahayn ayay dhahday, oo qof aragga naafa ka ah inaan nolol la qaatane uma baahni, oo aniga ayaa soo arka ayay dhahday. Gabadhii iyo wiilkii asxaanka badnaayne sidaas ayay sheekadoodii noqotay. Dulucda sheekada waxa ay tilmaamaysaa in bila'aadanku ay ku jiraan dadyo fara badan oo mararka qaar ballankii ay qabtaan ka baxo. Haddii ballan aad qaadid, waxa uu kaa rabaa oofin. Kalsoonida iyo qofkan waxa uu kuu samaynayana jacaylka waxa uu ku mutaystaa sidii adigu uu kugu guulaysan lahaa. Qof abaal kuu galay cadowgiisa ha noqon. Garashada iyo maamuuska waxa ay tilmaamaan guusha halka ay tahay. Qofka maanta ku jecel waxa uu awoodaa wadnihiisa qayb ka mid ah xitaa inuu kuu soo bixiyo, laakiin adiga haddii aad tahay cadowgiisa, abaalkii loo galana aanan aqoon, ma ogtahay inay kugu noqon karto ciqaab adduun iyo mid aakhiro. Naf asxaan loo falay ha noqon naf murugadeeda. Kalgacaylku waxa uu keenaa guusha labada qofood. Xumaantu waxa ay dhalisaa garasho aan maamuus lahayn. Halkaas ayaan ku soo afmeerayaa sheekadii xanuunka badneed ee ahayd araggayga ayaan u beddelay. Araggeedii markuu soo noqdana waxa ay dhahday, noloshaada kuma qanacsani oo uma baahni. Waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah Mahad Abuukar Maxamed Mahad Socdaal. waxaad ka daawanayseen barta YouTube-ka ku leeyahay Socdaal 24. intaa ku kulmi doono sheeko noocan oo kale ah. Nabadgelyo, ballankaana adkeeno.